sabaya samir baan ku noolaan adoona bada soo noqo nasiib waxaan la soo kulaa nabadgelyo nabadilo iyo nooli kulante nabadgelyo nabadilo iyo nooli kulante naftaan siisa sabaya samir baan ku noolaan adoona bada soo noqo nasiib waxaan la soo kulaa waxaan soo ajiibnay sagotintii walaalkeed cabdi xasan sidaas ku xilqaanay iyo dhawaraadayii hawlihii faraha badan sheegay sawirka wala qof kasta kaalin ku lahaa hadana maanta kabadbestii waan joognaa waxaan jeclaan doonaa haddii la yidhaahdo in barnaamijkeenu ama soo qabsado doono ama nagu dhici doono aan hadallo kooban aan qaab ku dhici doono sii sheegno waxa laga yaabaa yar emotionally waan هذا من حبنا وقت حبي واقع قلت لك سكر وقت هذه لي يا نبنبو بس وقت مركني كرب كي بدحي بديك بايا تغيو marka wax kala ba emotionally waan waxa ka baqay raacid ciise gurbay yaa mugtaayeen yar diidan inay jabay jacala marka si kala waxa program wuxuu bilaabay doona dileeyado in qof kasta ay wada daqiiqo ama hal daqiiqo oo yiraahdo walaalka cabdi ciise oo sameeyo markaasi yani inagii oo yiraahdo hadana xubin badan oo soo shaqeeya ahaa dadku marka shaqo lagu jirana waxyaabo badan iska dhici kara in markaasi aan cafino isna cafiyo aynu markaasi macnaheedu si fiican oo sharaf leh aynu walaalkii sameeyo hadii la yiraahdo ayaa jaran doona kala xubno weey baa jooga odayaashii jooga bah xaafada garaadida jooga marka waxaan ku soo wareejiyay mikrofoonka soo aynu hawshii inoogu socoto inoogu bilaanto xasan ciga jooga garaadida xaafada way jeclaan laga helo kooban in la dadaalo tawada garanaysan markii shaqada la qabanayo la habeynayo barnaamijka ama warka in aad u soo jeedo oo maaragtay abdaan araga isticmaal si kala baxsan laga yaabaa in bac leh si kala baxsan laga yaabaa marka in aad attention soo jeedo runtii shaqadiisa aad u jecel ayaa saaxiibkeen nagama fogoon adduunka hadda waa globalization kooban oo maaragtay meel wada joogo oo qofka halkan joogay ka meesha adduunka ugu dambeysay jooga oo wada xiriirayo isagana waxaan u rajaynaynaa maaragtay halkaa u socdo in ilaahay dad wanaagsan iyo eel wanaagsan iyo saxaaf wanaagsan kula kulmiyo ujeedada u socdana ilaahay maaragtay uga dhabeeyo innagana maaragtay aan u dacayno oo nidhaano ilaahay maaragtay garab galo oo dadka u tagayso dad wanaagsan kaaga dhigo dhulka tagaysan dhul wanaagsan dhulkaaga oo kala ilaahay kaaga dhigalaan oo ducaynayna innagana waxaan leenahay marka saaxiib muddo badan soo wada shaqeynay oo 10 sano meelahaas marka inaan si wanaagsan aan u sagootino ayaan oran lahaa dhammaantii waa garaadka saxaafada waxaan jeclahay soo dhaweynaa dana xildhibaanka waxay noogu xigi doonaa odaygii odayaasha isagoo odayg waxaan ducaan ka rabno nuur waxbadan buu soo joogay cabdi ciise ayuu soo joogay marka taariikhda cabdi ciise si fiican si garanayo nooga sii dhawo oo oda nuur sababta u dambeysay wax kala ma xildhibaanka ku soo dhaweynayo aad iyo aad baad mahadsantihiin ilaah waan mahadis kare suuqeen keenay madasha quruxda badan aynu ku sameeyno walaalkeen cabdi ciise ibraahim runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madasha quruxda badan aan ka soo qayb galo walaalkii cabdi ciise runtii annagu waxaan soo wada shaqaynay muddo ka badan 9 sano waxaan shaqada ka soo wada bilownay xafiiska warfaafinta ayaan ka soo wada bilownay runtii nin shaqada markuu ku jiro nin ay ka go'an tahay
anigu 3 sanadood agaasimo baan ahaa 3 sanadood agaasimo waxaa ma garanayo iyo intii kalaba isagoo hal qarab galay isagoo shaqadiisa habsaamiyay walaalka Cabdi Ciise waa ku maasantahay shaqada wanaagsan ilaa maanta Cabdi Ciise barnaamijka qabday Cabdi Ciise warka qabday ilaa maanta aan la oran waxaad ka tegaysaa oo ku soo noqonaysaa shaqaalihii wakaaladda warbaahinta iyagoo jecel baad ka tegaysaa iyagoo jecelna waad ku soo noqonaysaa runtii qalbiyadayada aad bay ugu weyn tahay walaalka Cabdi Ciise Cabdi Ciise sidoo kale wuxuu ahaa mixiiskayga waxa muddada aan wada shaqaynayeen saaxiibkan ahayn wallaahi ma garanayo hal eray oo qalad u yimid taana waan kaaga mahad celinaya walaalka Cabdi Ciise runtii reerkaaga in badan kaa maqnaa baad u tegaysaa dumaashida iyo dhammaantay waad ugu salaamaysaa waan u ducaynaynaa insha allah uwad khayr qabna allah idin siiyo waqti badanna way kuu samirteen waxa loo baahan yahay gabadha intii aad ka maqnayd waqti badan inaad siisid insha allah tacaala waqti badan inaad siisid kolley hadalkii waan dheereeyey waayahay kolley waxaan halkan u joognaa sagootinta walaalkeen Cabdi Ciise oo isteedka u socda oo nin badan soo wada shaqaynaynay oo run ahaantii aan oran karo wuxuu ahaa shakhsi aan shaqada ku wanaagsan intaan wada shaqaynaynay marka loo eego dadkan wada shaqaynay muddada hadda aan waaxdan u joogo ninkan wax qalad lagu soo sheegin buu ahaa shaqo wanaag hawlkar qof karti leh oo de shaqadiisa wax dhaafsanaan qaban buu ahaa runtii waa yowmul carafo ciid bay kulle kusoo beegatay xilliga oo Cabdi Ciise laga safrayo ayuush waxaan rajaynayaa in khayr badan baan u rajaynayaa isaga iyo faamilkiisa annaguna sagootintiisa ayaan caawa halkan u joognaa insha allah annagoo nabad qabno caafimaad qabno inaan isku iman doono ama aan ku iman doonno ama na iman doonto intaba insha allah waan rajaynaynaa marka lama soo koobi karo haddii la yidhaaho laga sheekeeyo Cabdi Ciise CV-giisa iyo qaabkii shaqada laakiin caawa waxaan u joognaa waa sagootintiisii marka waxaan leeyahay insha allah haddii la yidhaho annagoo nabad qabno inuu isku keenkeenan iyo rajaynaya kolley waa lasoo wada xiriiri doonaa waa laska horeyn doonaa adna safar khayr qaban ku rajaynaa adiga iyo qoyskaaga marka waxaan ku leeyahay bye كل واحد سكون أنت ولا كرنيا أبدي سقف وياه أنت أنا في المعامل سمعت ما بعنا مقاطع كلية حول الرش كل أبدي شغالين من كده صحيح تيمو على يابا أبدي إنسان وفاقد كسر بالرسول حنا مش شيء أنا بقول لك كها تيمير دكا أي تورك تيفي هذا يونيفرس هون كيبل تيفي تيفي يا قيبة خلاص نص ميجي الحين الناس يصور بيرون مركا يدي تكلا ولا عندنا نصور بيرون مركا رومانتي بكل وناجي سنة بلوش شيء أنا بدي أروح أقف فرح سريع عاوة نتيجة العبد وبحيو قيبان كاها أنا عبد الصلاة بان ولا قلي غير لورنجري حفصة لورنجري ما بس عاد صلاة كلي نور مرة صباحي بجري عمري كنت أنا لسكرستي سدح جاب بجري عاونا شيء مرة لكن عاون شيء مركز سدح ديك كصباح صلاة متكمل ويا كلمة مش لو كلمة كده حلوان كلها حاسك وقصة مرتاحة كسويس لكن سمك هي كوري أنا بصراحة بدو ما سيجري يعدو وقاعد هول بدو أبرك بدو بكري وحق بدو كل مش وقاعد كده يدك كرين لقيا حلونا قريب من كلها ما كان فرحات لبعض بيسي تعاون لكن هاوشي أن يقلي أنا بصعد على كل جراه هول بدو قريب قلبي إن كده بيسيبه ينعاون نتجدي لهايو السكوتري ولا مدوبي مرة لبعض فرحات قاريتها حق شقة سنعدي يقول نقول مدينة بويا أنا أروح شقة قابنا يصير وسلي معنا كان صاحب كاي كان وخلاص قرارات كلها فوق من يعني سوق جيدون فيه أو فهلا ورك بسوق رجنيه وحي قرارنا كها قابني وشقة ونعسون حق خونا عن شهر يدنا والبدن هذا وناقص أنا عاود لما يكرم يتضرنا ما دام يقطن بيان مرة لا فرح بيت هاي سلام كنت بعين إلى هاي من لبيت كجي الصور نبض قبل كل اللي لما كان فوق ما أنتوا عندي واحد نقطة حافظ صدق حاجة مي هذا ما راح يصير waxaan la celinayaa dhammaan shaqaalaha saxaabada marfaahinta iyo sidoo kale marshada nala joogtay oo ugu horeeya xildhibaanku iyo inta waxa weeyaan shaqaalaha yarweyn la socdaan
waxa weeyaan intan shaqaaleeyana waxaan islahaa malaha ku yeelan maayaan waxaan sideen in la jecel yahay waxa weeyaan shaqaaleeyga jooga marka aad baan ugu faraxsanahay intan shaqaaleey jirto فرحت درت العام مالك وياهي السلام عليكم دمانتين هرتوا الماسنتين دمانتين بقى سيدا دمانتين بس أنا وقت قاعدتين عني برنامج كرينو هرجلو عبد العزيز كل يوم بدو باسيس وشقينا يدو أنت لسه تسيب شقايل بالكهرباء عن جامعة برنامج هاي لهذا كل شقين شرني كل يوم توقفك أذكر أنا سكوت ما أمر شقين شرني فضلنا عن لا تشجري إن شاء الله خرج شيء أنا مسوي خير قبول أنا ونواني مدة كل يوم إن شاء الله إن شاء الله عليك يجرين كاجا مش يبروا إلهي سفر كاجا سفر خير قبل كاجا ديكو إلهي نبدلين حسن يا كل صور شيء نور يوم من فوقها قاعد مر التحضر بدن وتشعل إن يعني واحد وصمينية إنه حكي ما نجعل تينا ما أنت دي وقت لو ده شيء يوم laga markaati kacay inaan wax lagu haynin Cabdi Ciise khalad u sameeyay marka taasaas ka wanaagsan oo dadka la sifaca loo dhaqmo oo waliba mararka qaar ku soo kordhiya inuu waxyaabo kala taliyo ku dhow sidoo ku fiican yahay barnaamijka warka iyo ahaa marka taa kulli nagama tagin reerkiisu yani ku biiri doona insha Allah muddo ka maqnaa waan ducaynayna isaga reerkiisa insha Allah innagana waxaan leenahay markaas aan noqono kuwa isku xiran mar walba oo sidan oo kale de markii qof uu tagay ama qof uu wax qabsado kale sidan isugu yimaado xaflada sida uu joogtay anu dabcan SRTV kama tii wali jooga in kastoo videoda hadda u shaqeeyo haddana waa meeshaydii magaamisanay mar walba saaxiibadeeda mar walba aradiyay wax ila soo dirsaan la wadaagi doono haday guul tahay haday wax biin la wadaagi doono marka waxaan leeyahay Ilaahay uu sakhira safarka saasaan salaam xildhibaanada deegaanka Soomaalida anigoo ku hadlaya afka warbaahinta deegaanka Soomaalida Cabdi Ciise waa rukun kamida warbaahinta deegaanka Soomaalida waxaan doonaynaa maadaama halkan xubin adag waxa uu kaalada warbaahinta inuu markuu Mareykan tagana u noqdo rukun kamida wakaalada warbaahinta iyo warbaahinta deegaanka xubinka inoo jooga inkastoo xubno kale inoo jooga laakiin haddana inuu inoo noqdo xubinka inoo jooga deegaanka Soomaalida Mareykanka xubinka inoo jooga inuu Cabdi Ciise inoo noqdo waxaan rajaynayaa shaqadii uu halkan ka hayay inuu inooga qaban doono Mareykanka wala Cabdi Ciise aad iyo aad u mahadsan tahay shaqada sharaftan waxaan ku doonsiinaynaa shaqadii wanaagsaneed ee deegaanka ka soo qabatay tanina ma noqon doonto tii u dambeysay iyo tii ugu horeysay midna ma noqon doonto